Somalia. Somalia midowdo. Somalia hasracad. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. marka waxaan jeclahay caawa in sha Allah in xafladii aynu bilaawato laakiin mar walba xafladana dhignaa laakiin caawa in sha Allah waxaan jeclahay duco wadanka waxay u baahan tahay in loo duceeyo madaxweynaha loo duceeyo ma sha Allah in sha Allah wax walba ducaan ku gaareyna xaflad oo gudaanay madaxweyne farmaajo in sha Allah caawa waa lagu soo duceynaa ummadii waa loo duceeyaa dalkiina waa loo duceeyaa ducadan ilaahay naga aqbalo marka ilaahayna waxa dhaha bismillaahir rahmaanir rahiim fa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ilaahay ka tuweena ina ducadan ilaahay noo aqbalo marka hadda xafladda maadaama noo bilaabanayso waxaan jeclahay in aan ku bilaabo waalidkayna xaaji maxamed imaan oo quraankaas lagu furi doono soo dhawaad waalidkayna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين إلهي وحنك برينا إنه خير نوافجيو ولا ليال دنتينا راسا وحنبد أنه يسكدونا إن ستشنو iyo aan isku kaalmaysano diinta islaamka iyo soomaalinimada ayadoo leeyahay maslaxada ummadayna Soomaaliyeed iyo wadankeena kaasoo wax walba ka weyn isii gacmaha isku qabsan lahayn dowladnimadeena iyo calankeena iyo shaqada qarankeena Soomaaliyeed Allah iyo waxaan ka baryaynaa wadankeena Soomaaliya noo yeel wadan nabad iyo barwaaqo آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. بابا محمد إمام وحقودينا خير إلى أقصيه بارك الله فيكم. بركة هذا عاو إن شاء الله وحن جعلناها إلى مدحوينها وتهنيد ودر تهنيد ذاتنا وإلى صعبته دعو الحمد لله حفلة أبو الدالني لكن كل وحي أباهنتا إن لو دعيو مدحدي لو دعيو أنا كنا نسكت دعينه إن شاء الله عاو وحن إلهي كبرينا خير بش بش بركة يبرواقه لكن إن شاء الله والدين كان يولال كان يولالها كل ذا وحن جعلنا هلا دفع صعونا هدف كاسو إيه دعو أو مدحوينها هنا الحمد لله أو درينه مركو اسكو هدف أنا مركو وحن عصتنا هنا هدف كأي أهاتو ما هتعلن لو دراي يدعو أيضا لسوقاونا بعد ما وقت كان وايرت هاي كاسان عن عصتنا markii hadalka bilaawatana waxaan jeclahay isfahan iyo raalin ahaansho iyo bari ay ku jirto in la isfahmo taamkana la ogaado insha Allah hadda caaw waxaan ku soo dhaweynaa magaciisa gudoomiyaha baraarujinta bahweynta banaadir. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. runtii caawa shucuurtayda lama soo koobi karo aad iyo aad aan ugu faraxsannahay sida وعن أو وناكسن ودمانتين هل كان سوون مد وحنا عاوة سوون مد سداد أكتهين وصود وين وأن صود وين إنه مدحويناه مدن عبد الله محمد عبد الله فرماجو. runtii halkan waxaa isugu yimid dhalinyaro odayaal siyaasiyiin waxgarad iyo culamaa diin intaba halkan waxay maanta caawa halkan shucuurtooda soo muujiyeen u soo banaanbaxeen inay soo dhaweeyaan madaxweynaheena mudane cabdullaahi maxamed farmaajo. tan kale runtii waxaa farxad mudan in mar kastaba in loo soo istaago markii la isku baahdo qaran Soomaaliyeed uu dhasho iyo isbedel
wanaagsanna u yimaado in dadka banaadiriga ah waxaa lagu ogaa dadkii safka hore ugu jiray ee mar kastana halyeyga u ahaa u istaagnaa qaranka ummadda Soomaaliyeed inta sano ee ay jirsatay dhibaatada u soo adkaystay 25 sano ilaa iyo 26 sano ay ku socotaa u soo adkaystay ayaa tihiin marka waxaa loo baahan yahay adkaysigiina inaad wadaan oo idinkana mar alla markii loo baahdana sidaan iyo si ka weynba inaan isugu nimaano aan u soo banaanbaxno aan taageerno ummad kastoo mudan in la taageero in loo soo istaago ayaa loo baahan yahay idinkana waxaan idinka codsanayaa sidaan si ka wanaagsana inaan isugu maano gacmaha isqabsano taas ayaan isu wada ognahay tan kale runtii madaxweyne Cabdullaahi wuxuu ka dhawaajiyay dib u heshiisiin ayaa loo baahan yahay dib u heshiisiinkaasina ujeedadu waxay tahay wuxuu yiri dad badan oo dulman ayaa jiro dadka dulmanna iyadoonan cafis la weydiisanina dhibaato lagama baxayo taasina waa mid aan ayidayno aan soo dhaweynayno mudane Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweynaha Cabdullaahi Farmaajo محمد Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ilmaami hadal kuma jiro raali ahaada caawa maadaama xogaa aan dahnay sidaa awgeeda waxaan aan aad ugu faraxsannahay inuu ka dhawaajiyay dhibaatooyinka dalka ka jira wuxuu ka dhawaajiyay iyadoo uu tilmaamay amin daro inay jirto wuxuu kaloo tilmaamay in ciidanka qaranka aan daryeel la siinin aan lahayn nidaamka dhaqaalaha oo burburay iyo cadaalad daro inay mushaakilaad badanna ka jiraan dalka masiibooyinna inay ku yimaadeen dalka magaaladeeni oo waddankeeni Soomaaliya iyo abaaro baahsan ilaa haddana la arkaayo oo ummadda Soomaaliyeedna aysan daha ka saarneen ayaa soo korodhay dhalinyaro oo aan barakac u dhimanayo badaha ku dhimanayo taasina waa muhiimadda uu Farmaajo ka dhawaajiyay madaxweyne mudane Cabdullaahi Farmaajo waa hadallada muhiimka ah dadka madaxweyne waa madaxweynaha ugu horeeya waaye oo maanta ka dhawaajiya waxyaalo essential ah oo loo baahan yahay oo ummadda qiiragelinaysa eena soo dhaweynaysa wanaaga uu madaxweyne la yimaado taasi ayaan annaga ayidsannahay taasaana u taageeraynaa mudane Farmaajo waxaan leenahay dadkaaga ka bixi dhibaatooyinka maanta haysata dalkaaga ka bixi dadkan waa dulman yihiin ummadda Soomaaliyeed tii iyo colaad bay ku dhamaadeen dhibaatooyin baa ka jira sida aad kale waxaan ka codsanaynaa in gobolada Soomaaliyeed oo dhan inaad ka dhigto mid Soomaaliya waa midnimadeeda inaad soo celiso ayaan ka rajaynaynaa hadduu Ilaahay kala noqdo madaxweyne Farmaajo caawa waxay banaadirigu ku soo banaanbaxeen mudane madaxweyne inaan annaga ku taageerno aan kugu taageerno inaad 4 sano soo socda aad ka bedesho waddankeena Soomaaliya aad u samayso sidii waayihii hore ay ahaan jirtay nabadeeda soo celiso kala dambeynteeda soo celiso isdhexgelinteeda soo celiso ayaa loo baahan yahay taasaana ka rajaynaynaa inaad ku dhaqaaqdo haddii Ilaahay kala noqdo mudane madaxweyne waxaan ka codsanaynaa annagoo aan maanta markaati kaaga nahay in aad noqon doontid madaxweynihii maanta magac ku yeeshay qaranka ummadda Soomaaliyeed magac ku yeeshay mansabad ku yeelan doona haddii aad ka bixiso dhibaatooyinka maanta lagu jiro iyo haddaad mideyso ummadda Soomaaliyeed gacmaha isku soo geliso oo aad ka dhigto dal iyo dad oo mideysan oo gacmaha is haysta oo si bariisamaadkii oo kale oo nin kastana oo maanta dibadda jooga anoo kale dibadaan jooga magaaladeedii waa rabaa dhulkeena aan ku noqdo oo dadkii aad soo celiso oo dadkii shaqa u yeesho ummadda dhalinyarta barakaca ee dhibaatooyinka madaxa ku dhimaan ka soo celiso intooda oo dhanba haddaad wixii wanaaga aad la imaado taariikhda ku xiso doonta waxaana kugu dhaafayaa wabillahi tawfiiq salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caawa haddana hadda waxaan kusoo dhaweynaynaa Cusmaan محمد إمام مدحويني مستقبل قال مدحويني مستقبل ما مع إمام وحن كعسين هذا جنا مدحوينها إن القرن الشعبي وحي أكرمتين وحن أبانين
عوض هرت حفلة واحد أنا اللي دبل دي لكن نصيب دلع دعوة واحد الحمد لله وأنا قرأت جوكستها إن شاء الله. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أخيات شرفت له وسلامتي نمالك استوجوتان عاوحن آد وفرح سنهي حفلة دان أن تاجرينو مدحوينهن عصب مدن فرماجو آد ياد أيا وفرح سنهي شعب كودن أيا آد ياد وفرح سن sababtu waxay tahay waxaad dareemaysaa inay Soomaaliya khabiir u dhamaaday yani maxaa taqaana inay timid marka taasna sharaf weyn ayay noo tahay alxamdulillaah rabbil caalamiin shacabka Soomaaliya ha ogaadaan madaxweynaha farmaajo waa qof kaliya haddii aan la garab qabanin haddii aan la si fiican loo taageerin haddii aan xaasidnimada laga dhaafin inuu kaligiis wax qaban karin Soomaaliya taas ha ogaato mideeda labaad aniga markasta waxaan u ololayaa shacabka baahan muhiimadda waxa waa qofka markii madaxweyne laga dhigo ummadoo dhan ayaa waxay ka sugaysaa inuu targetka number 1 noqdo inuu dadka baahida ka bixiyo haddii arintaas uu sameynin yani asiga naftiisa waa ku guul dareysana mahma kaana qofku yahay yani waa ogsoon tahay baahida wax kasta way ka horeysaa qofka markuu baahi hayo yani mushkiladiis marnaba ma dhamaanayso marka madaxweynaha waxaan baaq ugu dirayaa inuu si degdeg ah abaaraha Soomaaliya jiro saacadan aan joogno dad ayaa macluul u dhimanayo saacadan aan joogno dad ayaa gaajo u dhimanayo marka waa muhiimadda inaan saarnaa dadkaas si wax loogu qaban lahay sidaad la socotaan beriyahan waxaa soo socday in lagu dhawaaqi doono prime minister iyo wasiiro marka madaxweynaha waxaan baaq ugu dirayaa caawa oo sharaf noo ah telefishinka qaranka walaalkeen Yuusuf Garibeen uu agteen taagan yahay asigana waa mahadcelinayna markasto iyo howl noo daba taagan inuu dawladdiisa ku soo daro dad heer banaadir ah ilaa herka dadka heer banaadir waa ogsoontiin madaxweynaha asigan afkiis ayuu ku dhawaaqay in dad dulman ay yihiin laakiin maanta waxay fursad u heleen in fursad loo siiyo wasiirada in loogu soo daro meel kasta oo qof shacab Soomaali uu xaq u leeyahay ayagana inay ku jiraan haddii ay taas dhici weysay waxa waaye waa madaxweynaha naftiisa wax ku soconaya uma malayn doona aniga naftiisa aaminsanahay ilaan Soomaalida waa siman tahay Soomaalida waa hal diinteena waxay qabtaa qof kastoo bini aadam ah inuu siman yahay ma kala baxsana ilaan nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri annaasu ka ashnaanu mushta dadka waxay u siman yihiin sida shanlada oo kale cid ka darajo sareysa ma jiro qabiil kale ka fiican ma jiro qof kale ka sharaf badan ma jiro laakiin qofku wuxuu sharaf ku yeelan karaa oo dadka ugu sareyn karaa markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ka cabsado ilaahay quraanka siduu ku sheegay inna akramakum inda allahi atqaakum marka insha Allah madaxweynahan baaqeena waa dhageysan doonaa dad akhyaar sharaf la ayaa noogu fadhis halkaan ambassadorka muriid golf aan noogu fadhiyo gudoomiyaheena bibi banaadir har iyo habeen ku taagan inuu dadkiis wax ku qabto iyo anagoo dhan cid kasta oo heer banaadir waxay diyaar u yihiin inay madaxweynaha la shaqeeyaan insha Allah taala dadkaas baahan si degdeg wax loogu qabto yani yaan kala wax kale lagu mashquulin haddii wax kale lagu mashquulo waxa dad badan ayaa gaajo u dhimanaysa qof kale mas'uuliyadda markuu qaado cid kastoo baahi u dhimato waa la weydiinayaa maalintaas mas'uuliyadda la caleema saaro madaxweynaha wuxuu mas'uul ka yahay qof kasta oo shacab hadduu Soomaali baahi ku dhinto ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu weydiinayaa marka taas ogaado waxyaalo kale waa iska imaan doonaa yuu degdega waa laga fiican yahay marka dadka baahan markii Soomaalida baahida ay ka baxaan nabadda way imaanaysaa nabad asalan waxay ku imaan kartaa inuu qofka baahida ka baxo taasna waxaa daliil u ah ilaahay subxaanahu wa tacaala quraankiisa wuxuu leeyahay الذين أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يعني علامة waxay tahay baahida waxa laga soo hormariyay amniga marka hadii baahida ay mar dhamaato ma jiro yani nabad ayaa imaanaysa insha Allah aasam ku faraxsanahay madaxweynaha cusub anigan taageero ayaan u dirayaa kolba qof waxa waaye qofkiis wuxuu madaxweyne u noqdaa inuu dadkiisa wax u taro wax kale muhiimadda ma aha nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri khayru nnaasi anfa'uhum dadka waxa ugu khayr badan qofka ugu anfac badan ma aan qofka ugu maal badan ma ahan qofka ugu xoog badan ma ahan qof kasta khayrkiisu wuxuu ku jira qofka ugu dadaal badan oo ummadda wax jecel inuu wax u qabto marka kaasa ugu khayr badan insha Allah anagana diyaar waxaan u nahay inaan wadankeena u laabano si degdeg ah
ilaahay nabad ha keeno har iyo habeen waa u duceynaa waddankaas qurbahana waa ku daanay yacni waa dad badan ayaa ku dhibaatooday yacni waxyaalo badanaa jira qofka iyo soomaalida iyo umaran dadka soomaaliya jooga inay mushkilada keliya haysato qof kastoo dibadda markuu waddankiisa kasoo tago markaas ayuu dareemi karaa waddankiisu inuu qiimo iyo sharaf leeyahay marka insha allahu tacaala hadalkii kuma dheeraan waan mahadsantihiin ilaahay idinkiisa waxaan idin rajeynayaa guul iyo bashbash iyo barwaaqo wabilaahi tawfiiq imaad celi madaxweynaha loo diray marka fadlan waqtiga noo soo gaabiyo marka hadda waxaan kusoo dhaweynaa meeshaan cumar shariif mukhtaar soo dhawo walaalkay waxaan caawa halkan aan isku nimid dabcan qoomiyada banaadiriga dhammaantoodaba odayaashooda culamaa diinta dhalinyaradii kulligooda waxay taageerooyin caawa farxad iyo maamusad ay meesha ku joogaan inay taageeraan madaxweynaha cusub ee sanadka 2017 محمد عبد الله محمد فرماجي intaana hadalka dhabagalin waxaa la yiri marka hore taageero markii loo baahan yahay waxaan mahad balaaran aan u jeedinayaa golaha shacabka ama baarlamaanka ugu sareeyo mudane professor Jawari iyo hoggaanadiisa runtii oo si sharci ah oo cadaalad lagu doortay halkaasi runtii aad iyo aad ayaan ku maqsuudnahay aan ku faraxsanahay iyo waxaan ku faraxsanahay runtii sida cadaaladda iyo xaqa ah xildhibaanadii sanadkan 2017 anagoo aan fadhinay telefisyoonka waxaan sugayn in arrintu ay noqoto mid meelaha kale u leexdo laakiin waxaan aragnay runtii wax cajiib ah oo xildhibaanadii dhan ay si xaq ay markiino ay u tarjumeen shacabkii Soomaaliyeed ay doorteen madaxweynaha oo runta xaqa ah aan sugayno baryahanba waa mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo محمد عبد الله فرماجو runtii shacabka banaadiriga iyo minority kaleba ku nool gobolada sida gobolka Shabeellaha Hoose oo markas dib ay ku jireen runtii maanta waxay u taagan yihiin halkan waxay ka sugayeen garoonka siyaasadda inaad ku soo celisid mar labaad gaar ahaan shacabka banaadiriga waa kuwii oo ay ku jireen halgankii gobonimo doonka ah ee 1960kii ay meeshaas ma aragtay wacdaro ka dhigeen laakiin waxaan ka xumahay runtii dadkii ka horeeyeen oo ay indhatireen ay iloobeen dadkaasi intii ay ku duqoobeen laakiin mid waxaan kuu sheegay dhalinyaradii weli waa new society soo baxeen hadda diyaar bay yihiin waxay barteen dhammaantooda gaar ahaan kuwaas oo adiga garabku qabanayo oo maanta ma aragtay aad rabtid inaad Soomaaliya meel gaarsiisid diyaar bay yihiin iyaga inay soo saas ma dhalinyaro marka aniga hadalkayga inaan sii dheereeyo marabi mudane Farmaajo waxaan ka codsanaynaa shacabka waxay ka codsanooy keli inaa xaqa iyo cadaaladda aad u keentid siiba ma aragtay dadka banaadiriga maadaama loo diiday kuraastii aqalka sare iyo xildhibaanadii oo saas ma aragtay si xaqdaro loo galay gobolka Shabeellaha Hoose waxa ka socod waad ogtahay aniga ku sheego ma aha حمر وحي كسعد واد أكتر إن لو شيء معها ما كلي إن أديك إثبات الكين سا أديك لو كين أديك إثبات الكين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم بارك الله فيكم. مركات ماشي معكم سودوينينا أمبسطور مريدي قول. reer banaadiriga dhammaantood waa ku faraxsannahay gudaha iyo dibadda waa isku xirannahay madaxweynaha waxaan kaa filaynaa in aad siisid macala ra'iisul wasaare ku-xigeenka jagadaas waxaa iska leh maadaama guddoomiye baarlamaankaasi guddoomiye xigeenkii baarlamaanka weynay waa inaa la siiyaa nin reer banaadiri ah ra'iisul wasaare ku-xigeenka madaxweyne jagooyinkeena markastabe waxaa loo leeyahay dada ku imaan doona waa dadkan masaakiin waaye waxbaa siini kan qeylinays yaanu dhahaa madaxweyne arrintaas waa kaaga digaynaa annaga waxaanu nahay dad afgaaban
marka dadka kuwa dhow la taliyaal waxa ku soo baxa doona reer xamar masaakiin waaye kan qeylinaya siyarna saas cadaalad ma madaxweyne mogooshin cadaalad ina wax loo qeybiyo madaxweyne waxaan ka codsanaynaa in wax si cadaalad u qeybisid anaga waa jegada ugu horeysa kaa sugay ra-iisul wasaaraha maanta magacawdid maalinta ku xigana inuu noqdo nin reer banaadir ah ra-iisul wasaare ku-xigeen wax kale kuma qancino haddaba waan sheegnay gudoomiye waxaan leeyahay maaragtay ku-xigeenka koowaad baarlamaanka maadaama reer banaadir ay yihiin dad aamin ah waxaan ilaahay ka rajeynaynaa jegadaas aan kaa codsanay oo ugu weyn ra-iisul wasaare ku-xigeen waxa waaye dhammaantiin raalli ma katiin ra-iisul wasaare ku-xigeen in la siiyo raalli ma katiin jaale madaxweyne ra-iisul madaxweyne ha guulaysto soomaaliya ha guulaysato dhammaan shacabka soomaaliyeed ha israacdo midnimada soomaaliya ha waarto madaxweynaha ha waaro midnimada reer banaadirna ha waarto madaxweyne kheyr iyo caafimaad ha ku rajeynaya ee guul Formaggio, 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 formaggio. ودنا مدحوين عاو والله كل عرسة مش كتيرا مدحوين يا أبي لا مدحوين أمر ده كل عاو مدحوين عاو بالله كل ماشي والله خطوا أبوه ملي والله مركات الحمد لله مدحوين واسلو هذا جعلنا جعل كان يسكو يميت وأنا مرة البوضعي هنا marka waxaan jeclahay mudada madaxweyne waalida noo tahay marka wixii khalad aan ka hadalno caawa xaraarta lacabki marka hadda waxaan jeclaan lahaa inaan kusoo dhaweeyo shariif cabdullaahi cumar aneeti walaalkii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيرت وسلامتي ملك استوديو بجوكتين. نحن مركو هوري هنبليو عيلنا مدحوينها ودنك محمد عبد الله فرماجو. iyo runtii xafladan dadka soo qaban qaabi oo mudan ayagan in loo mahad celiyo walaalkeena xasan muriidi baraarujinta bahweynta banaadiri walaalkeena cusmaan akhyaarta naga horeeyay oo hadlay muriidi golof iyo walaalkeena ibraahim abba oo qamaqaabiyan dhinaca ka wado iyo tv-ga qarankana sidoo kale oo mahambalyanayna insha allah iyo dhammaan akhyaarta sharafta mudan ee halkan kasoo qayb galay odayaasha waxgaradka siyaasiyiinta dhalinyarta mustaqbalka aan rajeynayno insha allah ay noqon doonaan ayaga naftirkooda qaybta weyn oo ka qaatay maanta farmaajo waddanka ayagana aan u rajeyn doono insha allah inay mustaqbalka sidaas iyo si ka weyn ay kasii qaadan doonaan waddankeena hadduu ilaah yiraahdo insha allah runtii waxaa kaloo mahad celin mudan xildhibaanada oo runtii isticmaalay shucuurta shicibka sida ogtihiin waddanka shacib wax ma dooranaynin laakiin waxaa wax dooranayay xildhibaanadana runtii waxay noo muujiyeen runtii markaan ka hadlayno oo xaqiiqada ah shacibka waxa ay dareysan yihiin ayay mar run ahaantii la tageen baarlamaanka ee sanduuqa doorashadana ay ku rideen run ahaantii qof kasto waxaa lagu risqaa qalbigiisa waxa ku jiro shacibka soomaaliya adduunka meel kasta ay ka kala joogaan runtii waxay haminayeen in ay qalbigooda waxa ku jiro ay ahayd waddankii inuu qof cadaalad hogaamiyo caadil ah oo u dhan yihiin shacabka oo dhan ay wada ictiraafsan yihiin xataa haddaan idin soo qabto meesha ugu sahalsan ugu dambeyntii wareeggii saddexaad intaan isla gaarin madaxweynihii ex madaxweyne xasan sheekh waxaad arkayseen inuu tanaasul isla meeshii oo ka sameeyey taasna waxay muujinaysaa shacabka soomaaliyeed oo dhan in ay usoo dhalatay muxuu ahaa cadaalad farxad iyo reenreen iyo wax walba oo wanaag lagu koobo oo maanta aan tilmaami karno inuu maanta noo ximbaarsan yahay madaxweynaha mudane maxamed cabdullaahi farmaajo mudan waxaan ku leenahay hambalyo anagoo aan ku hadlayno magaca banaadiri sababtoo ah dad waxaan nahay qurbada ku nool jaalle madaxweyne aniga waxaan ku dareensiinaynaa anagoo banaanka aan ku nool nahay in aan maanta aan nahay dad soomaaliyeed oo qurbada ku nool
adigana waxaan rabnaa inaan noo muujisid inaan annagoo dhan aan wada nahay dad Soomaaliyeed oo hal jasad oo kale ah sidii nabigeena uu ku tilmaamay oo yiri haddii meel ay xanuunto meelaha kale oo dhan xanuunka ay wada gaarayso waxaan ilaahay ka baryaynaa insha Allah cadaaladda ayadoo sideeda ah insha Allah inaan annagoo dhan aan ku wada garab istaagi doono beelaha Soomaaliyeed oo dhan waxaan u soo jeedi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo inaan dawladda garab istaagno aan horeyna aan ugu sii wadno xadiidkeena nabiga oo yiri aan ku soo xasuusinay insha Allah inkastoo dad aan nahay muslimiin waxaan kugu waaninaa oo kaliya xusuusno horta aakhiradaada si ay adduunkaaga kuugu toosto nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raaciyati qof kasta waxa la raac waa mas'uul wuxuuna mas'uul ka yahay wixii la raacsiiyey waxaad ogaataa maalin waxaa ku sugi doonto lagu weydiin doono wallaahi aan ku dhaartay ilaahay magaciisa lagu weydiin doono waxyaabaha aad mas'uulka ka tahay maanta bal jawaabteeda ha kuu noqoto shacabka Soomaaliya jawaab fiican inay ka bixiyaan wabillahi tawfiiq kelmadeeda hadaladeeda ugu dambeeyna meeshaas aan kusoo gabagabeynaa أنا أمة الصومالي وحنا هاد لي أنا أشجع إن القرآن كوحول بقوق بحكرنا إلهي وحمدها بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة بالحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم إن شاء الله إلى آخر الآية إلهي أنو أنفعه تاسا من قدرتها السلام عليكم من كادوا حن جعلها إنهم كسودوية ولكن محمد عمر شحلو فضلا كدور الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قبل أم سوء استاجين إن أنا كخد بيو. وحن سوء استاجين أنا هم بليو. مدحوينه هنا عن أدعينه مدحوينه هنا ودك الصومالية. مثلا محمد عبد الله فرماجو. وأنا هم بلينا وأنا أدعينا. وحن كرجينا سيدو كذا واجيي. ambasadorka muriidi uu yiri jegada uu ka dalbaday inuu na siiyo maadaama aan nahay dad dulman asagana uu ka dhawaajiyey inuu wax u qaban doono dad iyo diin marka hadalkaygana meeshaan kusoo gabagaynaa wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخل على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تدرج عنه جوعا ولأن أمشي مع أخي مسلما في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد. حديث كان ودير هاي لكن waxaan marka hore horta mahad balaaran u jeedinayaa dadka soo qaban qaabiyay BB Banaadir ama bahweynta baraarujinta Banaadir runtii waxaan xasuustaa markuu farmaajo ku guuleystay oo madaxweynenimada uu ku guuleystay runtii buug oo walaalkeena qoray waxaan jeclaan lahaa inuu buuggaas meeshan yaala oo la dhahaa dadka tayada leh talada loo dhiibo runtii waxa u malaysaa ninka in wax loo soo sheegay ما شاء الله buugga la soo hordhigay runtii marka hore waa iska indhitiri jiray laakiin runtii waa buug runtii dadka tayada leh talada ha loo dhiibo ma u baahnid inaad akhrisid buugga intaasaan noogu filan macnaha runtii hadal iyo maxay ahayd xikmad wuxuu xambaarsan yahay buuggaasna waa runtii buug oo cajiib ah runtii waxaan rajaynayaa in macnaha walaalaheena ay macnaha ay buuggaas ku baraarugaan dadka tayada leh talada ha loo dhiibo iyo walaalaha kale ee sharafta leh culamaa udiinka dhammaan iyo siyaasiyiinta kulli waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan marka hore halkaan hambalyo ugu dirayaa madaxweynaha shacabka maxamed cabdullaahi farmaajo runtii aad iyo aad ayaan macnaha ugu farxanay runtii waxaan dareenay inay nolol cusub na soo gashay dad macnaha give up sameyn ayaan ahayn
soomaaliya markaa xataa ayaamahan laiswarwareysan jiray dadku waxay ku fikri jireen meelay u guuraan soomaaliya kuma jirin macnaha khariidadooda inay u guuraan koo wuxuu ku leeyahay malaysia aada mid wuxuu leeyahay minneapolis marka runtii arrimahaasaan runtii lagu fikri jiray runtii waa marka ugu horeysa ee ummadda hadda ay tikadha raadiyaan soomaaliya siday ugu noqon lahaayeen ay u degi lahaayeen ay macnaha wax uga qaban lahaayeen runtii ay ku fakaraan sida walaalkan uu sheegay runtii wuxuu yidhi cawada uma joogno meeshaan in macnaha khudbi wax la keena inaan duceyno ku jirta insha allahu tacaala waa ku duceynaynaa marka aniga hal mid ayaan ku darayaa insha allahu tacaala garabkaaga ayaan taaganahay ha ka baqin lacag ha ka baqin lacagna oo kula garab taagana insha allahu tacaala مسلم هات حتى وكبر دينا هذا واحد تستد إن شاء الله تعالى نصيبنا بوجيا ولا بوجا لك العوا بوجا لك الورك بيبي بنادل ذات كتير له ثلاثة حلو يقول leadership for the worthy وكاس ورنتي الحمد لله وعاد فرحتنا مركب بوجا واتا وطعني تسينا إن شاء الله يدو كل ما نسودي دورنا marka waa la heli karaa meeshaan aan taaganahay ayay fikradiisa ka soo burqantay maasha allah soomaalida ku jirta wadannimo ku jirta oo mar walbana u taagan macnaha har iyo habeen soomaaliya siday ku midoobi lahayd kollayba aniga waxaan u malaynayaa sidii wadamadan hadda aan joogno annaga alxamdulilah haddaan london ka baxno ilaa iyo scotland aan tagno waxaan ka baqayna ma laha إسبارن وميالو وحكل ميال ملا ساسا كتجن وحنا إن شاء الله تعالى from حمر إلا إيو كلنا إلا وحنا لها إيو إلى موت الله كتجن أو معنا واحد إن شاء الله تعالى هو يوم جينا إن شاء الله تعالى هدانا وحبك قولي سمين جال مدح وينا أو أكو قولي سديد عدالة وقولي سديد هدانا وحبك قوليسن هدو دلك سيديس وبرسية وقصي درو ولكن لقى أركو مثقال ذرة أو عدالة وقوليستي إن شاء الله هدو وقت سيديس دبور عملها ولستي وعدالة ماشي كم خنتها قول ماشي لقوم هايا حديثك وحكوا سوى حسنا يا نبي صلى الله عليه وسلم أو أهات دبضة ضدك معناها يوم القيامة بركة والرحمة هل كاس السودوية أو معناها حرب لسين دونا إمام عادل أيام كجرة waxaan ku rajaynayaa inaan insha allahu tacaala aan ku sifoodid sifadaas insha allahu tacaala marka guul iyo midnimo iyo soomaalinimo ayaa meel walba dhammaan u rajaynayaa waxaana shacabka soomaaliyeed macnaha ku boorinayaa inay la shaqeeyaan madaxweynaheena cusub maxaa yeelay far keliya foorma dhaqda shayga ugu hooseeya oo qofka macnaha uu samayn karo waa inuu duceeyo financial assistance waa loo baahan yahay jaal madaxweyne dadka qurbaha jooga idin lacag ayay diyaar ku leeyihiin laakiin waxna tusi baaraka allahu fiikum madaxweyne caawa waa ujeedaa mamada mani dhexgeli kari marka insha allah walaalkii maadaama asdahay waman yacmal misqaala daratin khayran yara waman yacmal misqaala daratin sharan yara marka hadda waxaan kusoo dhaweynaynaa walaalkiina cabdiqaadir ajik بارك الله فيك كبير السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عباشا وعسكو نمد إنهم تاجرنا مدحوينه فرماجو. أدقو كميت فرحانين تا برادرية وعنونا فرماجو وحباك والولين هيب يهوبا وكل قرب تاجناي. قول فرماجو قول فرماجو قول بيتنبض أمة الصوماليين قول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أراد دارو على عاود إنرجي ممكن أنت كمان والله عاود الحمد لله هذا حاسون واني أنا وبنادر وقعد عبدينا إن شاء الله إن نسوق قبل ولكن عثمان أبي فضل ولو كبت بارك الله
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قناع وقتها يا أنا قناع صوماليا صوماليا عميدو صوماليا هسرع ما سنتي مدن فرماجو anigoo ku hadlaya magacayga Cusmaan Abanuur Abi kamid ah dhalinyarada baraarujinta bahweynta banaadir ee ku nool UK waxaan ku soo direynaa hambalyo iyo bogaadin hambalyadaas oo xambaarsan guul aan ku wadno mar walba inaan garabkaada taagannahay waxaan diyaar u nahay wadanka dhisidaysa inaan ka qayb qaadano haddii ilaahay idmo qorshooyin ayaan damacsannahay meelaha beelaha banaadiriga ku badan oo dhan maadaama ay burbursan yihiin waxaan isku dayi doonaa inaan anagoo reer banaadir ah inaan soo wada degno sideeda inaan ku dhisno aan hagaajino oo wadankii aan bilicdiisa aan soo celino laanna anaga waxaan lagu yaqaanay xadaaradda magaalada banaadir muqdisho dadkii laga soo gaaray inaan nahay marka wax walba anaga diyaar baan u nahay caawna halkan waxaan isugu nimaanay taageerada aan ku qabno anagoo wada dhan caawo oo ah maalin sabti ah oo axad soo gelayso bishana 18 February 2017 marka waxaan jecelnahay madaxweyne inaan hambalyadaas nagu guddoonto anagoo nahay beelaha banaadir ee ku nool ee UK intaasi waxaan kugu tirayaa ilaahay garabkaada allaha gala waa kuu soo dacaynaynaa haddii ilaahay idmo dhammaan anagoo ku hadlayna magaca beelaha banaadiriga waxaan leenahay guul farmaajo waad mahadsantahay haddana waxaan qaadinaa heestii aan waxaa u lahayn inaan mar walba aan halkan ka jeedino anagoo wada dhan diyaar madaniyo بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله ما شاء الله وضد مدحوينا عاوة وكل شيء حرارة حق المظهر بس واحد على إن شاء الله إن قدوميا نص حرف الرجال قدوميو عند على إن تختي رسول قال لا تقول رجال قدوميو وضد حسن مريدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هذا عاو وفرح سنة الحمد لله. oo sidaan isugu nimaanay oo si qeer ah noogu dhamaaday aad iyo aad u mahadsantihiin kasoo qaybgalkiina wayna farax gelinaysaa sidaanan jecelnahay banaadir inay isku duubnaato wax alla wixii muhiimad ay imaadana inaan isu soo banaan baxo taasi waa muhiim waana ku mahadsantihiin tan kale runtii caawa waa la socotaan waxaan isugu nimaanay inaan ku soo dhaweyno madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo runtii ummadda Soomaaliyeed waad la socotaan inay dhibaatooyin badan iyo muddooyin badan ay colaado iyo dhibaatooyin badan soo jiri jireen laakiinse maanta alxamdulillah waxaa u dhashay madaxweyne ummadda Soomaaliyeed ay isu raacday ayna dooratay waana marqaati waxaad ka tihiin in baarlamaanka sida wanaagsan ee loo doortay oo sharafta badnayd ay sida wanaagsan ay ku dhamaatay ay xildhibaanadiina xil isaga saareen inay si cadaalad ah wax loo soo doorto cadaaladaasina uu ku guuleystay madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
sidaa awgeeda caawa runtii waxaan u taagnayn taageeradiisa waanu taageeraynaa waxaanu ka codsanaynaa inuu wixii uu ka dhawaajiyo oo dhan annagoo ka dharagsan inuu ka dhawaajiyo oo taariikhdana baaldahab uga gasho qaranka Soomaaliyeed oo marar kastana lagu soo xasuusto in madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo inuu ahaa ninka keliya madaxweynaha ugu horeeya ee maanta lagu tilmaamo inuu qaranka ummadda Soomaaliyeed gacmaha isu geliyo oo qaran Soomaaliyeed oo midaysan nabadaysan dadkeeda iyo dalkeedana ay mid yihiin ninkii ka dhawaa oo sameeyo in ilaahay ka dhigo ayaan rajaynaynaa taasna waxaan ka rajaynayaa inuu ku dadaalo dadaalkaasina ayaa aan ka sugaynaa insha Allah haddii ilaahay farayo mudane farmaajo waan ku taageersannahay madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed tahay waanu ku soo dhawaynaynaa waxaana kaa sugaynaa inaan aragno cadaaladii aad tilmaantay iyo inta aad horseed u noqotay ee aad ka dhawaajisay inaad magaaladaasi gobolka ummadda Soomaaliyeed aad ka dhigto dadkii maanta isu galqabtay iscafiyey ee ummad qaran midaysan dhashay oo maanta u curtay inaad ka dhigto ayaan rajaynaynaa waxaana kaa rajaynaynaa in adigana baaldahab aad u gasho baaldahab aad gasho maanta ninkii maanta la filaya inaad noqoto oo ummadda Soomaaliyeed gacmaha isu geliyay wabilaahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh